gudaha dalka waxaa maanta inta badan maamul goboleedyada dalka iyo caasimadda si rasmi ah uga bilowday imtixaanka shahaadiga dugsiga sare oo 10kii sano ee ugu dambeysay qaadaysay dowladda federaalka Soomaaliya. Imtixaanka fasalka 12aad ee kama dambaysta ee dugsiyada sare oo socon doona toddobaadkan ayaa waxaa u fariistay arday tiradoodu gaarayso 37,000 waana tiradii ugu badneed ee la diiwaan geliyo sanadihii ugu dambeeyay. Sida ay shaacisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, imtixaanka sanadkan waxaa lagu galayaa 136 goobood iyadoo ardayda imtixaanka u fariisanaysa ay ka socdaan dugsiyo gaaraya 736 dugsi. Ammaanka xarumaha lagu galayo imtixaanka ayaa si weyn loo sugay waxaana amniga iyo badqabka ardayda ay dowladdu u wakiilatay ciidamo boolis ah oo gaaraya 2176 askari halka tirada shaqaalaha kormeeraya imtixaanka ay yihiin 2870. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa saakay caasimadda ka daahfuray imtixaankan waxaana ardayda uu ku booriyay inay muujiyaan dadaalkooda isagoo u rajeeyay inay soo hoyaan guul la taaban karo. Dhanka kale waxaa xusid mudan in sanadkan imtixaanka shahaadiga ay qayb ka yihiin ardayda ku sugan deegaanada maamulka Qaatumo oo dhawaan dowladda ay u aqoonsatay maamulku meel gaar ah. Si taasi la mid ah waxaa imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare sanadkan ka qayb qaadanaya ardaydii ku sugnayd deegaanadii dhawaan laga xureeyay Al-Shabaab. Degmooyinka iyo deegaanada dhawaangalka ah sida tooska ah oo maanta imtixaanka uga bilowday ayaa kala ah Laascaanood, Buuhoodle, Ceeldheer, Afmadow iyo Ceelwaq kuwaas oo dhamaantood markii ugu horeysay 33 sano kadib ardaydodu ay u fariisteen imtixaanka dowladda. Dhambaalkan ayaa noqday mid aad loo soo dhaweeyo waxaana wasaaradda waxbarashada ay sheegtay in imtixaankan tayo ahaan uu ka sareeyo kuwii ay qaadayeen sanadihii la soo dhaafay.